ku-xigeenka dowlad goboleedka SSC Khaatumo Dr. Maxamed Shiine ayaa gaaray gobolka Sanaag safar ku kala bixiyay gobolada Sool iyo Sanaag degmooyin badan buu tagay safarkaas waa uu kuurgurid dadka deegaanka xaaladooda baahinta maamul dadajinta arinta ugu muhiimsan waxa weeye maamulkii Khaatumo inuu gaaray Cerigabo meel u jirto 50 kilomitir oo ah degmada weyn ee faca weyn ee halgamayaashu ay ka soo jeedaan ee fiqifiliye Cerigabo wax ka yar 50 kilomitir ay u jirtaa shacbiga reer Khaatumo iyo ciidamada qalabka sida ayaa calamo qoyan ku soo dhaweeyay soo dhawow madaxweyne soo dhawow wafdi balaaran wasiiradii xildhibaanadii maamulkii gobolka Sanaag kii degmada Cerigabo dhammaan iyo kii maamulkii degmada fiqifiliye waan ku faraxsanahay maalin ay iga farxad badan tahay halkankii la soo maray marxaladii la soo maray wajigii labaad ma jirto maalin iga farxad badan tahay Khaatumo muwaadiniinta reer Sanaag ee Khaatumo in dowladoodii gaadho waa guul weyn loo gaadho Cerigabo 50 kilomitir bay noo jirtaa leerkeedii baa inoo muuqda Cerigabona waa tagaynaa inagoo sidan ka xamxab badan inagoo sidan ka carcar kulul ayaynu tagi doonaa haddase waa tagi doonaa waxa weeye maamulka ayaa siyaasadda ugu hogaamiya maamulka talada inoo haya maamulka uga dambeyn doona qodobka waa qodob Cerigabo waa magaalo la wada degan yahay waa magaalo dad kala aragtiga degan yihiin waa magaalo hadda gacanta cadowga ku jirto waxa weeye laba xaafadood bay kala tahay xaafada Harti baa degan xaafada Idoor baa degan waa la kala guranaya nin walba xaafadiisa maamulanaya ninkii intaa diida waxay noqonaysaa in gacan bira lagu qabto Cerigabo laftigeeda gacan gabigeeda gacan lagu dhaw oo hal maamul oo Harti leeyahay oo ka shaqeeyo horgalada Cerigabo ku sugan ee aan xogtooda hayno ee laaluushkii cad quursiga iyo sandareeraha qaadanaya ee warsangaliya dhul bahante waxaan leeyahay jamaahiirta haloo diyaar garoobo dagaal weyn baan caawa cilaaminaya oo aynu horgalada ku qaadano ma xasuustaan laas aanood bishii January 2023 horgalkii lacag qaatay kii horgal u taga iyo horgal kalkaali soo TV-ga meena ka baahin jirin soo qoraal ka meena sameyn jirin soo boorqaad kuma meena sameyn jirin tiiba Cerigabo ka bilaabanaysa waxa jira horgallo lacag la siiyay laaluush la siiyay qaarkood TV-da ka hadleen qaarkood laaluush lagu soo siiyay inay ciidamada hor istaagaan SSC Khaatumo yaa u shaqeynayaan heer Idoor leeyahay u shaqeynayaan laaluush iyo casquurs iyo sandareero ay qaateen wixii la soo maray Harti soo maray iyo guulihii la gaadhay iyo dagaalkii nimanka ay maryaha dhiiga la kala furnay waxa soo xagal ugu ilaaway horgal waa garac weey reer mamatolo qoys mamatolo dagaalkaas aan cilaamiyay hadeer ba ku bushaaraysta kii nacayay kii ku farxayo halkaas sawirkiisa soo dhigay ninkaas horgalka magaciisu waa sida sawirkiisu waa halkaas soo dhigay insha Allah taala liiskiina hadda gacanta ku haya waxaan ku wada verification ma ku wada xaqiijin ma ku wada laaluush bay qaateen cad qurs bay qaateen qodobka jamaahiirta leeyahay loo diyaar garoobo haddayna horgalada suulin inna kama guuleysan karo qodobkan Cerigabo waxaan kaga baxayaa isaaqa kalaanu la hadli maayo dahabarta wax yar baa ka degan ba Cerigabo Muuse Ismaaciil baan la hadlayaa Muuse Ismaaciilow dantiinu waxay ku jirtaa waa inaan leeyahay barakicin waa inaydan qaxin waa arkay kuwa Muuse Ismaaciil afxumo meelaha la wareegaya sanaga nagaale Cerigabo nagaale afxumo ciraadna waxba kaaga ma tarto nabadana waa ka fogeysaa bal dib u jireeca caaw Cerigabo ka qarxday wiilkaaba jecel ceelaf way butagaya adu xagee tagaysaa qaxaysaa degma Cerigabo degma ku leedahay deegaan balaaran oo reerka u qaxamo ku leedahay waa mayo weey buurti baad fuulaysaa yaan la hoosaasin yaan been iyo walaahow yaan la idinku sheekeen waxa weeye Cerigabo dadka wada degan baa wada baabaale kala maamula kala aragtiya kala siyaasiya yaan xaabada la idinku sheeg haddii aad sadiidaan wali maamulkeedu nabad buu doonayaa Hartigu nabad buu doonayaa haddii aad diidaan dacarab baa la isleefsinayaa habar jeclana habar jeclaa Sacad Yunus
علف اللي بدك تبحين كرويدي ما كلتها waxay bixinaysaa Muuse Ismaaciil oo ad garanaysa waa mayo dabka ku shubasa waa habar sanaag degan qodobka waan la intaas ku dhaafaya cirigaabo dadka wada degan ee kala maamulka waxaan rabnaa in nin walba xaafadisa maamusho xaafadisa ku ekaado ninka intaas diiday Soomaa dacar baa la lafsinaya taas hal la guntado qodob waxaan rabaa inaan carabaabo beelweynta Mareexaan side gaar ahaan deegaanada uurku jir waxa weerar ku qaaday niman huwana oo dir leeygu waa dir laakiin huwan badan wata hawiyo wata waliba habar gadir heeraha la carabaabay ee dagaalka ku jira ee ku dhintay ee ku dhaawacmayna waxa la sheegay waa habar gadir gaar ahaan Saleebaan iyo Cayr uurku jir reer dalal la yiraahdo Mareexaan ayaa degan dirta halka deegaanka u dhow ya Mareexaanku dagaalka folkafol waxa ugu dambeeyay 2001 waxay isku leen jireen iska dagaalo de gaadmo dad la kala dilo laakiin dagaalka folkafola waa markii ugu horeysay waxa weerar lagu qaaday uurku jir halkaas oo qabiilka reer dalal la yiraahdo degan yahay waxa isku saacad la weeraray ceel dheer iyo uurku jir oo saacadu markay 5tii xilliga waaga geedkay qofka la kala garto ee waagu bariyo ayaa la weeraray dagaal adag baa ka dhacay waxa weeraray dirtaas iyo huwantoodii waxaana weerarkaasi qaaday huwantaa iyo dirtaas wata reer dalal waa babac dhigeen dagaal saacado badan socday khasaaro badan ka dhashay waa iska difaacan goobna lagama qabsan maxayse u socdaan dirtan iyo shuruurkooda iyo hadii la kuuro yahay iyo habar gajirto Mareexaan deegaan uu leeyahay deegaanka balaaran uu leeyahay in la qabsado oo lagu duulo oo hadii la kuuro yahay saamigana galmudug ku leeyihiin ay luus gareeyaan intaas weey isku xilli baa la weerar fiiriya elder iyo meesha la yiraahdo uurku jir isku saacad baa la weerar elder yaa weeraray nimankii madaxa duubnaa baa weeraray elder yaa weeraray dir iyo habar gadir wada socda yaa weerareen jifi Mareexaan kamid reer dalal la yiraahdo Mareexaan waa isgaaray dagaalka waa la wada galay hal taaka laga qabsan maxaabiis baa laga qabtay meedkoodii bay ka carareen xaqqa guulaysta xaqdaraso ma guulaysato nin gurigiisa dagaalkiisa jooga oo lagu duulay isaga guusha mar walba raacay imika saan xogta ku hayo imika waxa la isku horfadhiyaa deegaan la yiraahdo qalanqal oo u dhaxay huursho iyo xaraale baa imika la isku hub urursanaya dagaalkaasi waa wajiye badan yahay urri Soomaalo dhan baa ku jira Xasan Sheekh Maxamuud baa ku jira Ismaaciil Horar baa ku jira Muuse Juudaan baa ku jira saddexdaa waa ku jira waa dagaal daarood ka dhan weey wakiilaas aanado kala weey ee lagu mideysnaa weey waxa rabaa inaan la hadlo dagaal qabiil inaan ka shaqeyno ma jecel aan kale special hase haddii lagu kalifo waa khasab waxa la dagaal guntaha uu ka bilowdaa nin qoyani biyaas kama dhowro waa khasab weey dadkayga deegaankayga inaan difaacno oo waliba af dheer ugu sheegno dagaalkan la galo dagaalku Mareexaan ee dir ma dagaalku waa huwan dir habar gadir iyo Soomaale iyo Mareexaan weey maanta uu Mareexaan waan qaban karaa laakiin Mareexaan duulaan ma yaga duulaan lagu yahay nin dagaal Mareexaan ku qaaday oo ka adkaaya taariikhdana lama sheegin 91kii markay dawladdu burburtay oo USB ay qabsatay koonfurti badankeedii Mareexaan hal taaka laga ma qaaday intaana waa dirireen waa dagaalamay maanta waxa rabaa daarood in la hadlo daaro Ismaaciil Mareexaan waxa duulaanka lagu yahay waa daarood baatiin waa deegaanka balaaran ay degan yihiin maxay ila gudboon waxooy Mareexaan ay dir haday yihiin ama reer dalal dir isku filan la isugu tagi maayo laakiin dagaalku inta waa ka sal balaaran waxaan ugu baaqayaa daaro Ismaaciil inta u dhow iyo inta ka fogba inta u dhow dagaalka way gali kartaa gurmadkan ay dirto inta ka fog ee dalka dibadda soo joogtana dhaqaalaha ay bixiyaan aynu difaacano dadkeena deegaankeena Hargeysa ilaa Xamar ilaa Dhuusamareeb waa isku xiran yihiin ilaa Djibouti
wax badan baana socda oo aynan ogeyn baa socda waxa dawlad lagu yahay sidee 9 gobol daarood u dagaa Soomaaliya dhulkii la oran jiray jamhuuriyadda samanka sidee u dagaa waa ta daga lasaan weerarka lagu qaaday waa ta maanta waxa weeye hadii la kuuron yahay arra mareexaan waliba galmuduga weerarka lagu yahay waxa la sheegay ninka haysta galmuduga qorqor inuu qeyb ka yahay dagaalkaas waa isaga deegaanka xukuma hal ciidan uma dirin waxa la sheegay hadeer inuu ciidamo badan oo dawladda federaalka ka yimid oo ciidamada xoogga dalka ku jiray oo dir ah oo abargidira intuu taha loo bedelay dagaalka ku dhintay qayb kamid hadda ay soo gurmadeen ninka dhintay ee dagaal ku dhintay waxa kamid ninkan lagu magacaabo waxa weeye ganaaji oo korneela oo ciidamada xoogga dalka aad gobolka Hiiraan joogay dagaal ku dhintay haddana way soo urursadeen gurmudkoodii way soo urursadeen shaadka loo bedeshay waxa loo leeyahay waa dir hadda waa cayri iyo salaam way waa dir ma dir baan kala dhaqaan anagu marka waxa weeye daaroodku waxaan leeyahay hala diyaar garoobo shaadka la bedesho kamare ka hartiga iyo ka waadeenka hay halka taga mareexaan weey shaadka bedelana shaadka hala bedesho dagaalkan hala galo ya dagaalka hala galo sababta awey mareexaan iyo dir waa isku filayeen la mareexaan meel ma wada mareexaan Jubbaland waa degan yahay galmudugna waa degan gobolada dhexe mareexaan ka galmudug degan ee gobolada dhexe degan iyo dir isaga filan oogna laakiin dagaalku dir iyo mareexaan ma aha warkaana soo xaqijiyay waa mareexaan degan gobolada dhexe iyo habar gidir iyo dir is wato weey ma isku daawanaa marka ma isku daawameen shaatiga sida habar gidir ay u bedesheen inaguna wayna shaatiga u bedelana waxaan rabaa inaan ku dhawaaqo in la diyaar garoobo garab iyo gaashaan loo noqdo beesha mareexaan sida annagu daarood baana dhigayga waa daarood dagaal qabiilan ka shaqeey horaan uga afeeftay laakiin hadii se lagu kulifo waa nin qoyan biyees kama dhowro weey qodobkaas waa qodob waa laayay ninka daaroodka ee hartiga ee kabla laxa iyo ka hadii la tarada daarood waa nin mareexaan marka ka tago shaatiga la bedesho sida habar gidir ay ragga waxa weeye dirta u yihiin qodobkaasna intaas aan ku dhaafaya waxaan ku soo gabagabeynaya Soomaaliya arrin mucjisada ka dhacday ninkii Xasan qowlaysato dawladii Xasan qowlaysato warnimankii waxa looga taaglaayay xawaalihi waxa xamar baroor ka socota waxa qayla ka socota oo jeedaan xawaali baa la faganaya xawaali baa la xaraashaya xawaali baa la xaraashaya Soomaaliya ilaahay baa u maqan kaaga darano la fiila la miisaamaya la dad baa 20 sano ka hor dhintay dad baa jiray hadii la guuro yahay 30 sano ka hor dhintay dad baa jiray 10 sano ka hor dhintay la fay marka dadka noqdeen la fay marka wax xawaaka lagu aasaa xawaaliga marka waxa way xawaala kala mashruuc lagu qaatay oo leeyahay lagu aaso xawaashi la faqay sideedii meeshii loo geeyay maay waa la miisaamaya $7 $1 baa loogu qaadanaya Xasan halka Soomaaliya dhigay iyo qowlaysatiisu Soomaaliya ilaahay baa u maqan dad bay ku dhacday Norway iyo Oslo daaroodkii isaaqii hadii la guureeyay raxaweyntii intii oo dhan waa ka saxdeen waxa loo tigin balay waa loo gooyay telefoonada laga dansaday xoogaa gaala iyo habar gidira u tiri hadda habar gidira abgaal Soomaaliya ma matali karaan waa mayeeway Oslo wixii ka dhacayna barnaamij gaar ah ka sameyn doonaa sidaas haloo socdo Soomaaliya ilaahay oo maqan maxay hadda inoo dhiman sanad iyo wax adigu dhowr bilood inoo dhiman inta ilaahay aynu barino nimankaana umaleemayo Soomaaliya wax loogu imaanayo waxay ka tageen umaleemayo mar hadii qabuuri leebiye imika waxa la sheegay in dadka wax weey dil ay khatar ugu jirno dadka kaliyahooda ee beerkooda in la baayo oo xamar laga furo shirkado dadka jirkooda waxa weey hadii la kuro lagu iibiyo marka wata tii barbaanka wareejiyay wata meeytida ba ka baxsan la qubuuri ba ka baxsan la nasib darada ka waxa culimo rag sheeganay oo afkii Xasan qowlaysatadiisa ku hadlay oo waa banaatay waa sax way waa fulan ilaahay baa la xisaabtami doona iyagana qodobkaasi intaas oo ku soo gabagabeynay barnaamijka si shar garay meel dheer ka tuuro insha Allah taala waa Abbas Madani